maanta waxaan tagay degmada Kismaayo iyadoo aan u tagay inaan soo sharciyeysto dhul guri dhisan oo aan lahaa. dhulkaa waxaan gatay oo aan dhisay 2005 ma oona lahayn sharci ma lahayn. dhulkaas wuxuu dhul basiibo ah oo dhulkii ka dambeeyay warshadii hargaha ahayd. waqtiga in badan u waayay daraadeed waxaan go'aansaday inaan qaato sharciga iyadoo ay tahay dukumenti dhaxalgal ah oo qof walba uu u baahan yahay. broseskan marayna maanta waxaan u malaynaya waxay ballamiyeen 2 usbuuc kadib inay soo bixi doonto warqaddu. lacagaha tii foomka iyo lacagtii kale iyo waan bixiyey. waxaa igu dhiman weli lacagtii kale dhulka lagu sharciyeynayey. muhiimadda aan u aadayna waxay ahayd inuu yahay sharcigu hantida qofku wuxuu yeelan karaa markuu sharcigeeda haysto. dhulkaasi waxaan rabaa inaan caddeeyo horta inuuna ahayn waktigaan gatay wakti aan maamul iyo siyaasad midna ku jiray muusan ahayn. wuxuu ahaa xilli aan ahaa qof ganacsada oo shacaba isla waktigaasaanan dhistay. dadkana waxaan ku booriyayaa inay qaataan sharciga. hadda canshuurta laga qaadaya sanadlaha waxaa ka muhiimsan canshuurtu ma muujinaysa mulkiyadda waa wax canshuur sanadla oo qofku bixinaya. laakiin qofka waxaa asal u ah mulkiyadda u ah waa inuu guri dhulka sharciyeysto. hadduu oo basiibo ahaana uu sharciyeysto, hadduu sawarloog ahaana uu dukumenti rasmiga loo sameeyo oo loo bedelo warqadihii talyaaniga ee hadda wada lumee dadku ayna haysanin intay ka guuraan ay qaataan sawarloog rasmi oo qofka uu dhulkiisa ku mulkiyi karayo oo raadraac leh. hadda waxaa laysoo siiyey nambarkaasoo mar walba meel kastoo laga gala la ogaan karayo booskayga meeshu ku yaalayo siduu yahay. intaba dadka maalgashadayaashaana waxaan rabnaa inaan u sheegno inay foomamka qaataan oo hadda magaalada cusub ee New Kismaayo ee hadda wadadan lagu xidhay Ringa Roadka ah dhulka ka baxsan waxaa loo bixinayaa dhul siyaalo kala duwan. ha noqdo dadkii doonaya guryaha real estate-ka loo yaqaano, ha noqdo dhul industry area oo warshado laga samaysanayo, ha noqdo deegaan. waxaan garanaynaa awal xaafadaha oo leh master balaan rasmi. awal xaafado dhulku wuxuu ahaa guryo 3 tareedisha guryihii la odhan jiray. laakiin hadda dhulka aan soo arkay foomka hadda aan qaarkood wiilashu ay ka qaateen 30-20 waa dhul waaweyn. 20-20 40-40 waa dhul weyn oo qofku si nolol ugu noolaan karayo. marka in la qaato dhulka sharcigiisa la qaato, la sharciyeysto kuwa iskale, kuwa cusub kuwa macnaha guryaha hore u lahaa ay sharciga qaataan, dhalka cusub ee dhulka la siinaya ay sharciyeystaan. taasaan iyagana ku booriyaya. waxaa kaloo la kulmay dad cabasho qaba. laakiin dhibka jira waxa dadka waxaa lagu ibtileeyaa degdeg. qofkii oo dacwadii ay taallo yaa wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo dacwadan ha la iga hormariyo oo waa in sidaan raba la igu dedejiyo. taana waxaan rabaa dadka inaan idhaahdo qof waliba ha ka soo qaaday isagu siduu yahay qofka kale, oo qof waliba waxa uu isagu rabo ha ogaado qofka walaalkii inuu rabo. hadduu rabo isaga in loo dedejiyo in loo xukumo, qofka la dacwoonaya xaqa uu leeyahay inuu qaataa loo baahanya ogaado waxa uu leeyahay. oo taa dadka aan ugu sheegaya midaasay ahayd. midda labaad, guri baad arkaysaa la isku haysto dhul. waxyaalahan arka waxaa ka mid ahaa qofkan la dacweynayahay gacan saddexaad bay kusoo gashay. qofka la dacweynaya waa qofkii mulkiyadda iska lahaa. wuxuuna rabaa inuu isagu kii mudicaaleyga ka tago isagu uu noqdo qofkii u doodaya isagu dacwada qadimanay. mana uu garan kara lamana socdo. dadku haddaw baxeen oo dacwada qolada maamulkiina ha u dedejisa dacwooyinka maxkamadaha iyo guddiyada xalinta khilaafaadku, dadkuna ha qaateen oo ha fiiriyeen qofku waxa lagu dacweynaya waxa uu yahay, sida uga dababixi karo. hadduuna isagu dacwadana khusayninoo qofka uu ka gatay lagu leeyahay qofkii ka gatay ha raadiyo, ha la dacwoodo. sharcigan in loo hogaansamo saasaa fiican. marka aad baan ugu faraxsanahay inaan soo sharciyeysta maanta gurigeygii oo intaas la dhisnaa oo deganaa. waxaana ku faraxsanahay weliba inaan la odhanaynin maamulka intuu joogay buu dhistay iyo maamul baa laga dhistay.